السلام عليكم asxaabta kusoo dhawaada channelkeena Somali One Expert fadlan hadaa ku cusub tahay like saar oo share garay kadibna subscribe waa muhiim taas ka wada hadlimayno waa idinkii faa'iido ugu jirta ciyaaraha aan maanta sameyn doono oo yaani shaxda ku soo gali doono maanta waxa ugu horeeya Rayo Vallecano Elephant yaani runtii waa ciyaar riski leh marka fiiriso lacagay labada naadi mid Elephant laba badisay tan saddex marna draw ay sameeyeen marka fiiriso hadana kulamadii ugu dambeeyay mid kasta waa hataa Rayo Vallecano waxay soo garaacday Barcelona hataa naadiyal kalena way soo garaacday marna waa laga badiyay ma garatay Elephant sidoo kale naadi sahlan maaha inkastoo meesha ugu dambeysay ay ku jirto laakiin waa naadi badin kara ama wax dhalin kara marka fiirsano meelaha ku jiraan positionada ku jiraan ama kaga jiraan Rayo Vallecano 12 ay ku jirtaa Elephant waa naadiga ugu dambeeya laakiin lama sahlan karo yaani ciyaari ugu dambeeya gool bay dhalinayeen wayna marna way badinayeen marka saanan u qaadan riski waxyaabo badan ba fiirin doonaa waxaan aniga isleeyahay ciyaarta waa ku soo gali doonaa caaw ku soo galaya labada naadi inay gool iska dhalin doonaan waa Elephant naftirkeedu ma sahlana 1.6 baan orka ka dhiganayna orka waliga aan isku ma badiyo anoo riski ma qaato labada naadi waa iska dhalin doonaa sa Rayo Vallecano gurigeeda joogta Elephant naftirkeedana waa dhalin doontaa gool saan aaminsanahay qofkii raba oo mataqaana baqaya oo Rayo Vallecano aaminsan oo isla Rayo Vallecano badanaysa win waa ka dhigan karaa oo 1.9 aan soo gudubna ciyaarta Real Madrid iyo Real Betis Real Madrid championka ay ka fakaraysaa mar dhow dheeli doonta finalki laacibiinteeda dhan ma safi doonto xagga darowga iyo xagga badiskana waa ka sameeyeen Real Betis marka fiiriso Real Madrid ciyaaraheedii ugu dambeeyay kuwaas qaar Elephant waxay mataqaana ka soo badiyeen 6 ku soo garaaceen Atletico Madrid baa ka soo badisay Real Betisna ciyaaraheedii ugu dambeysay kuwan qaar gool la'aan bixid qaarna gool bay dhalisay maadaama aysan Real Madrid waxa positionka ku jirto Real Madrid waa 1 waa garanaa Real Betisna waa 5 oo Real Betis naftirkeedu waxay rabtaa inay championka positionka yeesho ma sii deyn doonto Real Madrid marka waa game adag marka aniga waxaan dheelayaa shaxdii ay ugu taqaaneen riski aniga ma qaato way garanaysaan shaxdii ay ugu taqaaneen ciyaartan oo kala dheelaya waa ciyaar adag both teams will score ba ka dhigana both teams to score odkana waxaan ka dhiganaa 1.5 hal gool iyo wax ka badan baan ka dhigi doonaa ama ka yar marka sidaas ciyaarta ku soo gali doonaa insha Allah qofka Real Madrid aaminsan de win 1.7 waa ka dhigan karaa oo Real Madrid ba badanaysa ha ka dhigo team 1 ba badanaya ha ka dhigo laakiin aniga ma aaminsan inay Real Madrid badin karo waa laacibiinta dhan waa bench championka ka fakarayaan haddaan socono oo mataqaana naadiyaal kala jira oo hadda sida horyaalka Talyaaniga oo kale oo dheelaya caawa oo aniga 3 game 4 game meelaha saadheelaha habeenkii ama markay ciyaar jirto Roma iyo Torino waa ciyaar adag run ahaantii Roma naftirkeedu waa iska maalmaha waa tacbaan inkastoo Europa League final joogto Conference League final joogto laakiin labada naadi naftirkoodu waa laba naadi sahlan maaha waa laba naadi oo Torino gurigeeda joogta Roma ciyaari ugu dambeysay ma jeedo gool badalinaysay qaarna way badinaysay qaarna laga badinay laakiin waxba dhalinaysay marka aniga ahaan labada naadi horta qiimeyn baa ku sameynaya qiimoontooda positionada kaga jiraan oo kale hadda Roma 6 bay ku jirtaa Torino 10 bay ku jirtaa laakiin 10 dhibcood kaliya u dhaxeeya Roma naftirkeedu waxay rabtaa inaan booska Fiorentina iyo Atalanta ayaa baacsanaya waxay ka baqaysaa in booska Europa League laga qaado marka inay badiso ku khasbanta kuwan Torino la yiraahdo naftirkoodana gurigooda joogaan waa game-ka ugu dambeeyay lagu jiraa game-ka ugu dambeeyay way horyaalka Talyaaniga waa inay badisaa marka aniga shaxdii aad ugu taqaanin ayaa tan ku soo galaya oo riskiga yareed labada naadi inay dhalin doonaan 1.67 baa ka dhiganaya ma garatay de cid ma jirto aniga isleeyahay oo yaani markii la fiiriyo experience-ga ama isla Roma badanaysa ama Torino badanaysa waa ciyaar adag marka labada naadi waa dhalin doonaan ayaa ka dhigay gool bay dhalin doonaan 1.6 marka ayada saas uga baxnay kuwan Genoa iyo waxaas waa bari ma gali doono laakiin aan ma dhigan doono bari ciyaar fiican baa sugi doona
أنا aadna horyaalka Turkiga laba naadi oo taqaanaan oo fiican baa jira waa iskaga afareynayna waa Antalyaspor iyo Galatasaray waa ciyaar adag waa badanaa Galatasaray ayaa badanaa badisa kulamada laakiin markan la socdo waxa la joogaa gurigii Antalyaspor baa la joogaa Antalyaspor ciyaareedii ugu dambeeyay arag waa win way soo ma jeedaan way soo badiyeen ciyaaroodii ugu dambeeyay hal ciyaar Brazil laakiin gool badan baa la iska dhalinayay Galatasaray sidoo kale soo hal ciyaar oo dambe ayaa 0-0 gashay laakiin waxba la iska dhalinayay marka fursaduhu waa fiican yihiin gool la iska dhalin doona ciyaartaas anigana waa taqaanaan shaxdeeda horta suuq aan fiirina meelaha kaga kala jiraan horyaalka Antalyaspor waxay ku jirtaa 7 Galatasarayna waxay ku jirtaa 13 Galatasaray sanadka aad uga jifta marka Antalyaspor waxay is leedahay yani dadaal oo ciriiriso booska afraad oo Istanbul BFK ka ciriiriso oo waxay u baahan tahay kaliya inkastoo ciyaartii u soo lagu jiro laakiin Janiska raasay is leedahay ama Europa League aniga waxaan ka dhiganayaa labada naadi inay iska dhalin doonaan gool 1.5 waa odkaygaas baan qaadanayaa marka taasa ka dhigaya ma garatay labada naadi both teams to score oo 1.5 ah ayaa ka dhigaya ma garatay marka 3-4 game ayaa maanta dheelaya insha Allah ta'ala de ilaahay waa nasiib waxaan ma garatay ilaahay marka nasiibku badana waxaana waa de waa iska garanaysa waa bet macnaheedu waa khamaar waa nasiib horta aan gadaalni celiyo ciyaarihii shalay ugu dambeeyay waa aad ba u nasiib fiicnaa oo yani saan sheegay waa qaatay cidii kanaalka la socotay way ka faa'iideysatay oo kalsoonaatay way ka faa'iideystaa u maleynaya ciyaartan soo ma jeedo waxaan ka dhigay halfka hore hal gool iyo wax ka badan baa la iska dhalin doonaa boss half labada halfba wayna dhacday waxaana qaatay double lacaga wali wax isi dheer yihiin baa qaatay $1 iyo something baa dhigtay waxaan qaatay adoo $4 meelaha ku dhawaad lacagtan isku maana badin waa ciyaar yar beehdo mutaqaana liga 2 England ah Leicester iyo Chelsea wallahi waa aad saan sheegay noqotay soo ma jeedo lacag double qaatay ma sha Allah lacagta $1 dhigtay adoo lacag waxaan qaatay gaaraysa $13 ku dhawaad oo lacagteeda sarifkeeda lacagteeda bay hadda ku lacagtu ku habaysan tahay laakiin hal ciyaar laga badiyay inkastoo lacag yar dhigtay waa Aston Villa iyo Burnley laakiin Aston Villa wax bay weeraraysay marka positionada la fiiriyo Aston Villa inay badisaan ka dhigay oo yani laakiin haddaan ka dhigi lahaa both teams to score de shaxdeeda haddaan dheeli lahaa waa heli lahaa laakiin already ciil uma qabo waa lacag yar baa iga baxday waxaan xalay helay ka badnaa taasna waa mid muhiim ah dhib ma leh Everton iyo Crystal Palace waa ciyaartii adkeed oo aad la socoteen labada naadi waa iska dhalin doonaan baa ku qoray oodkana waa badsaday ayadana double baa ka qaatay $10 baa dhigtay $20 baa ii soo laabatay ma garatay ayadana bilaa hadal baa ku kala dhameeyay marka insha Allah ta'ala saasay wax marayaan ciyaarahan waa kuwii hore badanana aniga winkayga badan because of risk ma qaato oodka ma badiyo aniga waxaan sameeyaa badanaa isticmaala ood yar oo aan badnayn promo code dadka ma siiyo oo riski dadka aniga ma geliyo kaliya talooyin baa siiya talooyinkaasna dadkii ka faa'iideysta waa alxamdulillah oo journeygan ila sii wadaya oo ila sii soconaya ka maalin kasta waa soo update garan doona insha Allah talooyin badanna waa idin siin doonaa oo ku saabsan bettingka iyo qaabka mataqaana ugu sahlan marka insha Allah ta'ala kanaalka fadlan iyo subscribe gareeya dhiirigelin bay noqon doontaa sida maalin kasta niigu soo update gareeyo waana mahadsantihiin